بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أدوار كما ضقينا إن ساعة بيدي يعني وحنا ذكوا يعني إلى أنه إذا سوق عرشينه صدح قضب شردير ونساك يعني صدح حسبه صدح قضب وأهرمها هذا الكتير ككوباد waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu naga nabadgeliyo aafada cudurkan la yiraahdo coronavirus ee adduunka oo dhan saameeyay ilaahay baa awood leh inuu arin aafadiisa ilaahay dhammaanteen in naga nabadgeliyo wixii muslimiin ka nabadgeliyo caalamkuna ka nabadgeliyo ummadda Soomaaliland oo inteena ismaqlaysaa ka wada joogta kowkanayna waxaan leenahay aynu raacano talooyinka ay soo bixiyeen dhakhaatiirteena iyo kuwa adduunka oo dhan si looga nabad galo dhibaatadiisa maanta waxaynu ognahay adduunyada dal aanu saameeyay ma jirto kama duwanin adduunyada dhan saameeyay ilaahay mahadi ilaa hadda wax bukaana ma hayno laakiin waxa jirta inuu bukaanku muddo qaato uu mar qura ku qarxo si tiro badan sidii ku dhacday dalka Ingiriiska oo kale oo muddo hurdo oo aan la garanaynin cid bugta iyo cid kale waa wax mar walba soo bixi kara si taa looga digtoonaado waxa la isku raacay in dadka bini'aadamku sida qurunka nabadgelaya hadduu yimaadana khasaarihiisu ku yaraanayaan waa in la kala fogaado waxaa la soo ogaaday waxa laga qaadaa cudurka kala dheer yahay wuxuu u faafaa si cudur kasta oo kala u faafo cudurrada qaar sida TB oo kale iyo hargabka qaarkii wuxuu ku gudbaa hawada oo marka la qufco la kala qaada uu ku gudbayaa qufcii cudurrada qaar oo kuwa maqaarka u badan waxa lagu kala qaada taabashada iyo labada qof markay istaabtaan ama uu meel taabto qofku oo meeshii uu taabtay aad ka daba taabato taana wuu ku faafaa oo waa dhaqan uu leeyahay cudurradii kale cudurrada qaar waxay ku faafaan biyaha oo ay soo raacaan ama cuntada oo ay soo raacaan oo dabeetana cudur ka dilaaco tiina wuu la wadaagaa markaas si kastoo cudur u faafo wuu faafaa dhibaato badanna wuu leeyahay dhaqaalihii caafimaadkii isku xidhaashii qoyska ama ehelka oo inaga dad muslim nahay dhaqan beer leenahay aabo hooyo walaal abti adeer war isku xidhana marka dadka isku xidhanina day wada joogan mar walba oo isku dhagay tiina waxa la helay kala fogaado marka noloshiibu si walba u saameeyay dhibaatada ugu weyn oo inagu adag dhaqan ahaan marka dadka fariintan u farayna waxa weeye si aad u nabad gasho dadka aynu nabad gelina hala raaco sida quraan ku baxsan karno hala ilaaliyo oo kamid tahay meel kasto lagu soo ururay hala yareeyo meel aanan yareyn kareen baa jirto deegaanka guriga way nagu ciliili guriyaha dadka oo jaarkii labadii guriga isku dhagan yihiin dadkeenu waa qoysas balaaran oo qof baa meel wada seexda waa dhaqan iyo taageero leeyahay ma kari karno laakiin meelaha aan kari karno inuu kala fogaano meelaha shaqada kamid ah waxa kamid ah waxa meel lagu ciyaarayo la sugibaado waxa kamid ah maqaaxiyaasha lagu cabiyo kuraasada la soo ururayo waxa kamid ah hudheelkii oo ciliiriya cuntada English suuqa kala qaato waxa kamid ah marka dukaankii wax laga iibsanayo in kuyu la kala fogaado loo la kala durko waxa kamid ah oo inoogu daran goobaha qaadka marka la iibsanayo konton baa la isku dul taagay marka la mafaarisho ninkii qayray ma doonayo inuu gooro qayro waa inuu meel kula urura si aad u nabad gasho ubadkaaga u nabad geliso waayeelkeena jilicsan uu nabad galo waxaynu u baahanahay inuu waxyaalaha ilaalino intaan dhakhtarada waa ka hadlayaan inana waa ka hadlaynaa cod hortiba urma la sii gangantaa intaanu inta aynu iska sii qabanno ilaa hadda ilaahay mahad weer joognaa weli weer wadanahay waa sala filaya saacad kasta dadka kama duwanin dal kama duwanin talabaad hadiiba ay wax yimaadaan cudur arkanayaan la sasin oo qofkii bukay isaguna ha isaaliyo dadkooduna ha u ogolaadeen ay ilaaliyaan waxaanu nahay dad isu naxariis badan
qofka bukooda waa lagu wada yaacaa waa la wada dultegayaa waa la wada dhowaanayaa hooyada awowga abtiga walaalka bukooda kala fogaan kartid laakiin cudurkan wuxuu ina farayaa dhakhaatiirta ka shaqaysa mooyaane in qofkii meel gaar lagu hayo ma aha waxaanu jaraynaa naxariistii iyo ehelnimadii iyo diintoodna faraysa waalidka laakiin waa masiibo dee u gudbaysa dadka kale waxyaalaha inaynu aada iyo aada u maqalno waanadaa wadajir baan u soo jeedinayna danteennaa ku jirta in badanna waa laga hadlay dhibaatooyinka uu keeno ee ama marka la dadaalayo maarata dadkan guddida ka shaqeynaysa ee dadka dhibaatooyinka soo gaarana dalku maanta wuxuu wada shaqeynayaa si qarannimo ah dhakhaatiirtu waxay bixiyaan dowladdu fiirsana ha loo dhegan wulaado oo qofku yuu dan u leeyahay ka raacin oona muran iyo argeegta ka keen waa badbaadi qaranka oo dhan maanta waxa aynu aad ogtihiin in Ethiopia wixii arday joogtay oo dhan ee aan dalkeeda ahay jaamacadii la xiray la yiri in waliba hal celiyo meeshii tago arbacadii waan warkaa helay khamiistina waxaan u diyaarinay baabuurtii ka soo qaaday Ethiopia todobadii bas oo horeeyay maanta wajaalay joogaan kuwii kale caaway soo galayaan 40 saacadood soo socdo 300 arday ay malayo reer Soomaaliland Hargeysa la keenay doona deetana waxay ka digaan deegaamadoodii waxa lagu hubinayaa wajaale xanuunkooda wixii laga shakiyo dhakhaatiir badan baa tagtay ciidanka tagay dabcan waa la cadibayaa mudday joogayaan meesha inta la baarayo maalmo ma aha laakiin waxaa la doonayaa inay iyaguna u horansamaan awaamirta waxaa ka daran ehelkooda ka hortagaya ama soo dhaweynaya oo dadkeen wada caadifad badan oo jecel ma qaadanaya awaamirtii qofkii ka banaynaaba wuxuu leeyahay meenkayga diidiisa dhibaato ma qabaan dhammaantooda caafimaad qabaan siday xaggaa kaga soo baxeen in badanna way hadhay wixii imanaya waa la soo diray waxaa intaa dheer oo idiin sheegaya dhammaan badanka Soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaar garow malaha helin ama si wax u dhaceen in badan baa soo socota oo ku soo aadan wajaale oo bas soo karasto isoo aabray iyagana haddii ay wajaale noogu yimaadaan qofkii muslina ee dhibaataysan ama bini aadmiya ama Soomaaliya ee dhibaata wadana waynu taageeraynaa iyagana waxay ku dadaalaan inaanu toos u gudbino waanu la hadalay gobolada dhidhow oo dhan aan leeyahay haddii dariiqaan soo marnay idina u diyaar garoobo hore noo gudbiya iyaga haddii la yiraahdo wajaale ilaa toos wadada laamid ah inaanu gaadhkood diyaarnaa baan ku talagalnaa hawlahaas ay noo yaala oo aynu doonayno dhammaanteen inuu ka midoono taasi waa ta koobaad culeyskeeda ee maanta saddex gudoomiye xisbi oo anigu madaxweyne waan ku joogno oo ka midaysana farinta ka labaad maanta waxa soo baxay oo ay soo saaray World Bank adduunku in dawladii loo jiray Somali Republic ee 60kii la aasaasay ee 1990kiina kala burburtay in laga dhaafay deybihii xoogoodii mucaawinad toosan la siinayo warqada ay soo qoreen ay soo baahiyeen mala waa akhrideene ereyga Somaliland si cad uga maysaarin markay sheegeen Soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxay dhahan Somaliland 1990kii bay sheegteen ka baxday labana ictiraafin waanu ka saaray oo dawlad gaar ah soo sano gaar u taagan kuma cadda waxaanu halkan ka gudbinaa fariin hadaan reer Somaliland nahay dawladda Somali Republic la oran jiray ee markii dambana ku qurtay magaca Somali Democratic Republic 1990kii bay kala baxday Somaliland oo markii hore dawlad gaar ah oo ku beertay ahayd ilaa 1990 goor bay u taagantay ictiraafka siyaasiga iyo cid aan ictiraafada jirtaa ilaahayna waan ictiraafay anaguna waanu si ictiraafnay soddonkaas sanana waanu waliba kala joognay idina iyagana waa ogyihiin ilaahayna waa ogyahay anana waa ogna banka adduunka waxaan leenahay labada dawlad ee xilkiisu tagay 1990 kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda looga macaamilaya Soomaaliya hadii la leeyahay kuma ictiraafsano kala macaamil mayno Soomaaliya waxa ka dhaafteen iyo wax u qaban sanadka idin taala anagu Soomaaliland baan dawladda gaarka ahayd baan markii hore tagnay wixii nalagala hadlayo annagana nagala xaajoonay naloo soo marin maayo cid kale madax banaanida iyo ictiraafka asheensa waa kan ka baxnay ee ka dagaalanay ee goor uga joogno ee dawladda ka dhisanay taasna waa fariinta labaad oo u diray banka adduunka fariinta saddexaad waxa weeye maanta golaha wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii ay fariisteen labadii xubnood ee labada xisbi mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga suwaayeen ansixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii komishanka in badan dhibaateedu inuu kaagtay golaha wakiiladu waa sharci way madax banaan yihiin go'aankooda xoro
sharciyan taa waa arkaynaa waana aqbalanaa wixii ay soo saareen oo ma diidanin laakiin waxa taala talada dalka iyo danta dalku maanta waxay ku jirtaa inaanu isu wadano komishanka dhibtiisa wuxuu ina gaarsiiyey 2 sanadood dheeraad wajiyaal badan buu leeyahay ayuu lahaa khilaaf badan baa ka jiray dalkoo dhan baa ku jira dhibaato 2 sanadood iyo hay'ad oo khilaaf caankaas oo laga murmayay waynu soo afjarray iyada oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiiyey oo xisbiyada mucaaradka la ogoleysiin labadii keenay ogolaadeen oo ummadii kale raacsanayd iyo wixii khilaafaan aanu dhameynay oo ay ahayd midnimada inaynu u dhaqaaqno oo aynu doorasho eegsano haddii ilaahay balaada naga dul qaado midnimada iyo wada jirka dalkuna ku jireen maanta inaan sixiyaan arrintaasi kama naafri qarankuna kama furi sabab loo soo celiyay nimanka waa saddex go'o oo xar wixii uu gaaray maanta taas way dhacday tala looga noqon qaran ahaan iyo xisbiyaal ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wakiilada laftooda talaynu isugu noqon oo maxay noo dareenno eegi taana intaasaanu ka leenahay waa golaha waa ixtiraamayna laakiin arrintaa talo ayaynu iska noqonaynaa qaran iyo to xisbiyaalba waxaan uga mahadnaqay labada xisbi gudoomiyaashooda la jooga arrintaa inaan maanta si dheer uga wada hadalnay dantuna ay ku jirto inaanay noqon mid ku taag iyo ka ficiltana ku falceli xaaladda maanta aynu ku jirno ay ku habboon tahay qofkii qalad tirsada xitaa in la isku soo gaaro oo la yidhaha war maxaynu ka yeelaa waxaas aan ahay oo qof ka tirsan lagu noqdo way ku mahadsan yihiin arrintaas si qaran baanu talo dambe uga yeelanaynaa oo la isugu noqonayaa golahana wuxuu ka mid yahay qaranka tala dambe baanu ka gaari doonaa waanu ku soo celin doonaa arrin dambe oo arrintaa maxaa laga yeelaaya sidaa qaranku isu raacaa maxaa lagu midoobaa maxaanu surxaanteena ku yaraynaa ayaanu ka geli doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin